maantayto ciidan aan booliiska ahayn oo magaalada dhexdeeda shaqo amni ka qabanaya hadduusan booliisku weydiisan uusan taliyaha booliisku u yeeran waa ka mamnuuc. dalkeenna in hay-adihii ay korayaan oo u socdaan hay-ad kasta shaqadii ay lahayd. waxaan maanta ummadda Soomaaliyeed la sheergaraynayna in ciidanka booliiska aan dib u abuurnay dib u yagleelnay community policing taasoo ah xiriir ka dhaxeeya booliiska iyo shacabka. waxaan ku wada hadalnay shacabka sidii loogu adeegi lahaa sida ugu hufan ugu nadiifsan loo gaarsiin lahaa khidmaadka ama shaqada ciidanka booliisku qabto. ciidanku marna shacbi kama maarmi karo, shacbigu ka yimid shacabkan u shaqeeya isaga noo adeegnaa in ciidanka booliisku akhlaaq iyo adaab inay ugu adeegaan shacabka ummadda Soomaaliyeed. taasaan isla qaadanay. waxaan mahad gaar u celinaynaa iyagana ciidamadan AMISOM oo police component-ka la yiraahdo oo gacan naga siiya ama tababarka ha noqoto ama ha noqoto hagidda ha noqoto, iyagana ugu mahad celinaynaa, aad baan ugu mahad celinaynaa. waxaanu doonaynaa marka madaxda ciidanka booliiska, taliyaasha qeybaha, taliyaha saldhigga dhammaantood inay hoos aan ugu degno adeega muwaadiniinta Soomaaliyeed, adeega bulshada, inaanu hubinno sidii markii horeba caada ay ahayd in muwaadinka Soomaaliyeed uu nabad ku seexdo oo ku soo tooso, inaanu amnigiisa iyo hantidiisa ilaalino, inaanu taa ku sii darno, aanu ku sii xoojinno dhexgal gaar ah inaanu la yeelno shacabka, inaanu kasbanno kalsoonida shacabka, inaanu qaadanno waddada saxa ah aanan naga khaldamin, aanan marna aanan isticmaalin xoog iyo waxaan loo baahnayn, aanu isticmaalno caqli, aanu isticmaalno sharciga awooduna siinayo inaanu ugu khidmayno shacabka, inaanu u adeegno shacabka. in taliyaha saldhigga booliiska meel walba uu joogo inuu yaqaano degmadiisa, inuu qaato lahaanshaha degmada, inuu qaato lahaanshaha shacabkaas.